shaqada agaasimaha RTV halkan ayay ka socotaa maadaama howlwadeenada TV-ga oo ay ku jirto gabadhii inoo qaabilsaneed cunto karinta ay ku xirmeen saaka wadooyinka magaalada oo xitaa loo diiday inay ku soo lugeeyaan. maxamed aad u mahadsan tahay in raashin la kariyo waxaa jirta fariin igala weyn oo aan rabo inaan gaarsiiyo madaxda dawladda iyo hay'adaha ammaanka. runtii ma garanayo sababta dawladdu ay hal dhinac wararan tahay oo ah in koox ammaankooda la sugo kooxna isku socodkooda iyo shaqadooda iyo nolol maalmeedkooda la xayiro. runtii shacabka magaalada Muqdisho sida la soconaba markii hore waxay ahayd in wadooyinka qaar ee magaalada markay madaxda meel booqanayaan la xiro qof walbo shaqadiisa aadayo iyo qofka markuu shaqo soo aado gaadiidka uu xiriirnaa jiray laakiin qofka markuu shaqadiisa aadayo goobihiisa waxbarashada caadi bay ahayd waa la socon jiray. hadda dhaqan waxaa soo baxay oo maalintii labaad aan caasimadda ku arkeen oo ah in doorashooyinka magaalada ka dhacay oo hadda heer gabagaba ah maraya oo tii banaadiriga ay dhiman tahay waxaa soo baxday in wadooyinka socodka la diido. waxaa fahmi waayay marka saraakiisha dawladdu gaar ahaan laamaha ammaanku ma waxay fahmi waayeen micnaha wadadaas buundooyinka ay leedahay. waxaa ku taalo suuqi mid kamid ah suuqyada ugu weynaa Soomaaliya oo suuqa Xamarweyne ku yaala dekadii Muqdisho muruqmaalka ugu badan caasimadda ay ka shaqeeyaan ayaa ku taala suuqi maxaa la suuqyada Xamarweyne beerta iyo intaasoo suuqaha ku taalo haddana magaalada labadeeda dhinacba waa looga yimaadaa. marka waxaan is weydiiyay marka dawladdu sababtay halka dhinac uga raran tahay oo intaasoo qof u fiirin weysay baahiyahooda ee loo fiirinayo in yaroo doorasho galayso weliba meesha ay ku galeen ay xiranta. runtii maxamedow marka dadka la sheekaysato ayaa dareemi kartaa qaar baa waxbarasho u socday qaar baa shaqo u socday qaar baa gurigooda ay u jeedaan ayaana u goyn karin dhinaca kale. marka waxaan leeyahay laamaha ammaanku caqli shaqeynaya maahane caqligaan ahayn hala keeno. haddii gobolada doorashooyin ay ka socdaan oo shacabka gobolada ay leeyihiin madaxaana furan shacabka caasimadda majaha xiran marka madaxdeena waxaan rajeynayaa laamaha ammaanku sidaan si dhaanta inay keeni doonaan iyadoo mucaaradna aysan ahayn muxaafadna aysan ahayn war caqliga ha shaqeeyo. waxaa muuqanaya hab cusub oo xirnaashaha wadooyinka kusoo biiray shalay waxay ahayd gaadiidkii niyo soconin maantana waxay tahay adiga ha soconin. aniga tusaale ahaan waa baxay saaki dhinaca Xamarweyne kasoo geli jiray goobta shaqada waxaan ku khasbanaaday marka halkaas imaado oo socodkii la diiday arkay inaan soo wareego bakaara ka soo wareego oo ilaa bakaar inta aan ku imaado. okay aniga waan awoodaa marka inaan gaadiid soo raaco oo aan halka imaado ka waran ninka shaqadiisa maanta biilkiisa noloshiisa kasoo dhacsanaya Xamarweyne markuu buundooyinka dhaafa la yiri socod xataa uma gudbi kartid qofkaas caaw gurigiisa markuu ku laabto muxuu reerkiisa kula laabanaya. Abbas maxaa soo kulweysay dareenka dadka maadaama aad aragtay saaka. maxamed waa mahadsan tahay waa sax waxay ahayd inaan meesha tagno aan sheeko kasoo tebino sababta hadda jikada sheekada ugu soo tebinayo waa fariin inaan halkan ku hadlo waa fariin aan rabo inaan codkii shacabka ahaa aan madaxda dawladda aan jikada kasoo gaarsiiyo. sababta waxay tahay halkaas inaad camera la tagto iska daayay dadka say u tuban yihiin haddaad wax ka duubi maagta xitaa taleefon inaan la soo baxda halis camera iska daayay. marka askarta tirada badan ee goobaha joogto sometimes macnaha inaad meeshaas inta camera qaado aad dadkii dareenkooda soo wareysato aaday runtii meelaha qaar u adag tahay. fariinta dadkii saaka aan dhexgal oo kale oo ka imaanaysa waxay ahayd oo fariinta madaxda dawladda loo diraayo oo weliba aad dadka qaar qof baa bajaaj saarnaa wuxuu dhahay laamaha haddii saraakiisha ammaanka caruurtooda ay waxbarasho soo aadi lahayd ama shaqo ay soo aadi lahaayeen lama xiri lahayn laakiin caruurtooda iyo ayaga markay magaalada marayaan wadada way u furan tahay caruurtoodana meelahaasay jiraan oo wax ku baranaya. marka see dadkaas la rabaa marka in dawladnimada ay u jeclaadaan. marka waxaan rabaa hay'adaha ammaanku inaan ka codsado in tan weba dhacdee in dib loo fiiriyo maalmaha kale soo socto. waa uu mahadsan yahay Abbas waana filayaa fariinta shacabka inay gaari doonto madaxda ugu sareysa ee dalka balse halkan waa xarunta dhexe ee RTV si gaar ah xafiiska agaasimaha Abbas shaqadiisa ayuu wataa inkastoo
aan ka cudur daaranayo in lagu kala baxay raashinkii uu kariyey Cabaas. daawadayaal waxaa iga xasuusin ah in dib loo furay dhammaan wadooyinkii saaka ay ciidamadu ay xireen 9 saacadood kadib. Maxamed Yaxya Jinow, RTV, xaruntiisa dhexe Muqdisho.